السلام عليكم والله هكا جبتم ورقة أديكو نقرين إله كون حريست الدنيا أقربا ما هاد قال يا الله يا إسكاله كفا إذا سفر صدق قالك ولا لياش المسلمين تأهو ورقة وحي كتي من سعودي عربية وحي نقصة وطاطتك إسلام كا ورقية دمر بالي شيخ أحمد داطوح إلى ليها قبرك النبي إلى ليها قبرك النبي عليه الصلاة والسلام أيا وقتها بينا مركوت كذا صلاة الليل كذب النبي عليه الصلاة والسلام أيا يري شيخ أحمد داطو 60 مليون oo qof ayaa dhimatay oo qof kamid ahna jannada ma gelin Sheekh Ahmed aad buu u baqay sababtoo ah dadka islaamka oo aan raacin jidkii nabiga alayhi salaatu wasalaam sida darteed dumarku ma ogola inay raacaan ragooda markay wax faraan awradooda ma asturaan dadka maalqabeenka ahina xoolahooda masaakiinta islaamka in yar wax kama siiyaan dadka xajka aadaana ma tukadaan waqti kasta nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri Sheekh Ahmed u sheeg dadka islaamka ah si ay u wareeyaan una qaybiyaan fariintan qofkii qaybiya oo badiyo waraaqaha ku daabaca riyadooda ama niyadooda waxay ku qabtaan way arki doonaan hadii Ilaahay idmo qofkii isagoo deyn qaba warkan baahiya Ilaahay baa ka saacidayo inuu deynta iska bixiyo Sheekh Ahmed hadii waxa aan sheegayo been yihiin alla iimaan xariisto jannadiisana ha iga dheereeyo muslimiinta oo dhan har raacaan diinta islaamka waxay farayso hana ka haraan waxay ka reebayso qaraabada iyo dadweynuhuna ha isku naxariistaan ilaahayna dambi dhaaf ha weydiistaan isniin walbana ha soomaan qofkii warqadan 30 koobi oo dadka islaamka u qaybiya naxariista ilaahay buu helayaa waxa uu san waligii arkina uu arkaya warqadan iyo noqon wax meel la iska dhigo qofkii muslim ah oo arka waa inuu badiyaa oo muslimiinta gaarsiiya nin la yiraahdo kitaabi markuu warqadan arkay wuxuu u dhiibay gabadh xoghayn u ahayd waxayna ka qortay 29 koobi wayna qaybisay nasiib wanaag maalmo gudahood ayay heshay waxaynan waligeed ku riyoonin nin kale oo la yiraahdo Sayma Salman markuu warqadan arkay armaajo sanduuq ayuu ku riday wana ku hilmaamay shaqadiisina waa laga eriyay balse markuu waayay shaqadiisii ayuu xasuustay warqadan oo miisana 120 koobi ka sameeyay falkaas wanaagsan kadib ayuu helay shaqo ka fiican sidii hore nin kale markuu warqadan helay wuxuu ka soo qaaday waxaan macna lahayn una jeexjeexay nasiib darro isla maalmo gudahood ayuu si dhib badan u geeriyooday si gudbi adigoo niyeysan wixii aad rabtay inaad hesho ha ka caajisin walaal. Assalaamu calaykum.